أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa insha Allah cashirkaani ugu talagalay intaana practice galin wax yar aan rabaa inaan fahamsiiyo insha Allah. Mar waxaa laga yaabaa macallin qaarkood ama markii wax oo baranaysaan waxa la kulmaysiin install npm install local ku install local marka waxaa maqlaysiin npm install global maxay yahay maxay ka wadaan in xataa sharax badan oo laga yaabaa inay ka bixinin. marka insha Allah cashirkan insha Allah waxaan eegi doonaa npm install markaan dhigno even xataa mid waxaa jira localka oo this is one is important waxaa important yahay qaar ka mid waxaa jira oo alright ku qoran laakiin qaar ka mid waxaa jira oo inta ku qoran kan aad iyo aad u bad u yahay because ku sameyn amad يعني information yar aan rabaa inaan ni tusiyo ko markii application sameynaysa ama dhisaysid ko waxaad u baahan tahay مثلا applicationka waxaa ugu baahnaanaysaa qof kale package qof kale sameeyay because package kan waxa laga wadaa module ama package labadaba isku mid waa meeshan tilmaamka aan tilmaamayo meeshan ayaan tilmaamayaa haddaan maqashaan package oo module labadaba isku mid waay dependencies-ka ay ka mid tahay markii wax install npm install days install gareynisid inta package-kan aan samaysan json-ka ayaa waxaa galaa magaca oo package-ka magaciisa iyo version-kiisa ayaa galaya sida oo hadda kasoo qabo oo ana magaca inta meel oo yar oo meelahaniti ayaa waxaa kasoo qormaya dependencies-ka magaca oo package-ka iyo version-kiisa ayaa meesha galaa laakiin hadda weli wax ma arkayno لازم واحد install gareyn laakiin cashir kale aan ka dhigaya so marka meel waxaa jira oo la dhahayo magaciisa npm.js npm-ka waxa waaye waa search engine-kiisa ama waxyaasha ugu badan oo package-yaasha ugu badan meesha ku jira waaye oo developer-ka markaad developer sameynayso ugu tagaysid qaar waxaa jira private jiro oo shirkadooyin qaar oo sameystaa jiro private ah iyo qaar waxaa jira oo free open source ah adigna isticmaali kartid marka haddaad rabtid inaad مثلا kasoo qabo package ayaa rabtaa inaad isticmaashid oo package-ka magaciisa inta qoraysaa مثلا lodash package aa jiro la dhahayo ma ku xirno ani package-kan hadda lodash aan dhahayo main wax aniga oo magaciisa aan isticmaalayo main just waxaan tusinayaa markii wax raadisid waxaa ku soo baxaa meeshan install iyo meeshan how to install sida install gareynaysid ay ku soo baxaa inta waxaa ku qoran npm I lodash aygan waxaa la soo gaabay install waxaa la soo gaabay waay iyo mid waxaa jira inta ku qoran npm I g global npm iyo mid waxaa jira oo labadaniti oo hadda aan ka hadlayno labadaniti oo rigmo بعدين save بعدين magaca oo application-ka aad ku save gareynaysid ayaa ku qoran oo ku qoraysa kabacdi hadhowtii yani wuxuu ku galayaa package json-ka aad samaysatay magaciisa ku galaya even xataa waxaa arkaysaa package-kan markastoo update sameeyaa marka ugu dambeeyay 4 months ago waay package-yaal qaarkood waxaa jira oo waqti badan la sameeyay oo update la sameynin oo waqti badan kusoo wareegsadaa jiro taas waa iska alaaliya markuu cilad badan la kulmisan marka haddaan u soo noqdo npm install kaaseti marka yani markii days npm install save days waa important waa muhiim because why application-ka aad sameynayso la-aantiis ma ku shaqeynayo waay okay markii sameynaysid isticmaalaysid kan la-aantiis ma ku shaqeynayo application-ka aad sameynaysid kanne haddaa aragtid oo مثلا oo yani waxay ahaato oo npm save dev markaa haddaa aragtid kan waxay tilmaamaysaa kan yani ani hadda developer ahay kasoo qabo waxaan dhisoyaa ma ku xirno application-ka aan sameynayo inuu mu baahan xataa inaad isticmaashid just ani ahaan markii oo application dhisaayo lee ugu talagal laakiin markii oo save dhahaysid oo ku xirneen dev ku xirneen waa important waay la-aantiis application-kaada ma shaqeynaya taas ayaa laga wadaa waa insha Allah cashir practic waan sameynaynaa laakiin wax yaraan ii sharaxa markaad dhahaysa npm install gda sida u aragteen inta ku qoran gda waxaa tilmaamaya because
computerkaada waxaa ku jira node markaan install garayso nodeka local waxaa global waxaa laga wadaa yani node meel waxaa jira oo ku galaa jiro oo install markii wax kasta install ganeynaysid meel global ku galaa jiro oo globalkaasiti oo ku galaynin packagekanid magaca oo hadda mathalan kasoo qabo mathalan kana npm install samaysid waxaan localkan ku qoran intuu galaya magaca nameka iyo versionka intuu galaya okay laakiin markii global dhaysid inta muu galaya laakiin wuxuu galayaa computerkaada wuxuu leeyahay meel oo node module ah meeshaasuu galayaa taas waa ka hadlaynaa insha allah laakiin just waxaan rabaa inaa ag loo isticmaalaya maxaa kan loo isticmaalaya insha allah waa arkaynaa laakiin weligaada yani ku isticmaalin labadaaniti haddaa rabna oo application markaad dhisaysid haddii applicationkaada muhiim u yahay packagekan aad kasoo qaadatay meel kaleete kasoo ama open source ahaado hadduu muhiim yahay labadaaniti aad ku install garaynin because why waxa u baahanaa package jasonka inuu galo u baahan tahay because kuwaan ma galaayo haddaa wax npm install g dhaadid packagekan jason ma galaayo magaca oo packageka iyo versionkiisa iyo kanna weligaada ku sameynin iyada xataa weligaa ku sameynin even xataa magaciisa kan ugu xun kan waaye laakiin marka kan waxaa laga yaabaa computerkaada ayaa wax kugu save gareynaya magaca packageka xataa meel baa jiro computerka looga kugu save gareynaya jiro laakiin aad isticmaalin markii oo product yani markii wax sameynaysa applicationka sameynaysa aad isticmaalin laakiin qaar waxaa jira oo isticmaali kartaa jiro markuu yahay developer markii yahay waa u isticmaali kartaa install g waa u isticmaali kartaa qaar ka mid application qaar ka mid waxaan ogaaneynaa ama ni tusinayaa waxyaasha qaar ka mid oo u isticmaali kara g-da waayo waxaa waaye just yani muhiim maahin applicationka la-aantiis wuu ku shaqeey karaa haddaada oo githubka haddaad saartid laakiin muhiim waaye inaan ogaano why savekaniti why dependencykaniti why meesha u galaayo marka insha allah hadda marib inaan ku dheeraado kistaan yar ayaan rabaa hadda kusoo jiro ka bacdi practic ayaan gelaynaa insha allah biidni illah خير رجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.